kani waa wadnaha qofka bini'aadamka. Wuxuu u garacmaa si xawli ah, wuxuuna laga maarmaan u yahay nolosheena oo idil. daqiiqadii wuxuu garacmaa 60 ilaa iyo 100 mar. qofkii uu garaaca wadnahaas yaraado wuxuu ku sugan yahay xaalad aad u khatar ah. sidoo kale haddii uu batana waa xaalad kaloo halisteeda leh. ma ahan wax bini'aadamku maamuli karo. garaaca wadnaheena waxaa maamula Alle subxaanahu wa tacaala oo keliya. markii aan aad u faraxsannahay iyo markii aan wargeysannahaba wuxuu u garacmaa si xawli ah. garaaca wadnaha waxaan ka dareennaa mararka qaar bannaanka, mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la dhegaysto. garaaca wadnaha waxay ku xiran tahay hadba xaaladda uu qofku ku sugan yahay. normally markuu qofku nasiino ku jiro waxaa loo baahan yahay wadnihiisu inuu garaacmo 60 ilaa iyo 100 mar daqiiqadii. laakiin markuu ordaayo ama markuu xaalado kale ku sugan yahay ama markuu cabsanayo ama markuu faraxsanayo way ka duwanaan kartaa marxaladaasi. wadnuhu waa xubin laga maarmaan u ah nolosha qofka bini'aadamka oo idil. keliya ma ahan in dhiigga ay soo bambayso kadibna jirka ay kala gaarsiiso, laakiin muhiimadda kale ee wadnuhu leeyahay waxay tahay wuxuu laga maarmaan u yahay dareemayaasha qofka. wadnuhu waa meesha aad ka dareemayso nacaybka, sidoo kalena aad ka dareemayso jacaylka. waxaa kalood ka dareemaysaa qalbi jabka, waxaa kalood ka dareemaysaa farxadda iyo weliba murugta. marxaladahaasi aadka u kala duwan, kuwana ay aad u wanaagsan yihiin, kuwana ay aad u xun yihiin, intaba waxaad ka dareemaysaa qalbigaaga, wuxuuna wadnahaagu noqonayaa mid hadba qaadanaya xaaladda aad ku sugan tahay. waxaan leeyahay adigoo noqon kara qalbi dhise ha noqonin qalbi dumiye.